بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabteeda qaaliga ku xidhan channelkayga Maabi Bokor waa hodan marka la idin soo noqotay. Soo dhawaada maanta maxay hodan idin wadaa? Waxaan idin wadaa maanta maasha Allah tabarakallah waxaan sameysan doonaa bariiskan qadada iyo suugo daawasho wanaagsan kana faa'iideysta. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontiin. chicken hurisaan sameysanaynaa maanta, suugo ma sameysanayna kale. chicken ko hurisaan sameysanayna isagoo shiilan waan sameysan jirnay markasta, maantana isagoo hurisaan sameysanayna daawasho wanaagsan kana faa'iideysta. asxaabtii hore la joogtay waa ku faraxsanahay la joogitaankiina. asxaabta igu cusub qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada. meel idinka jecel iyo walaashin joogto subscribe-ka ii saara. asxaabta igu cusub, asxaabtii hore la joogtay like-ta igu caawiya, waa ku mahadsantihiin. waa codsi like-tu meel dheer bay i gaarsiisaa. wayna kaaday daawasho wanaagsan. hadda halkan waxaa inoo yaala bariiskii. waxaan ku shuban doonaa biyihii oo inoo kulaaday ayaan ku shuban doonaa. had iyo jeer aale bariiska waxaan kariyaa biyaha waan ka shubaa saa ay arki jirteenba. sida baastada ayaan u kariyaa ilaahay amarkiisa. markaa waa kaasa wakna saxaabey bariiskii hadda waa bislaaday la tahay. waa bislaaday bariiskii ilaahay amarkiisa. waxaan jeclaa inaan saas u kariyo isagoo biyaha saas ule aan ka shubo saas sida baastada. bariis oo isku dhigay ha karin. hadda waan ka shubaya saas kaga shubaya la socda. wakana saas isagoo daadanaya ayaan ka shubaya. warkaasa halkan waxaa inoo saaray distigii dabka. waxaan ku guranayaa hilibkaan soo meedho soo diyaariya. warkaasa hilibkii baan ku ridanay siduu ku bislaaday isna waan arki doonaa insha Allah. silibka ka fiinoogu karsamaya. tan waa basashiya baradhadii. halka waxay noogu jirta shaandhadan bariiskii. bariisku saas uu noqonayaa marka saad kaga shubto. waxaan ku yiri kaale iska arag adaa jeclaan doonaba soo tijaabiya. markaasa chickenka maanta saa idiin sheegay huris baan ka dhigaynaa. hadda waxaan ku darayaa basashii iyo baradhadii baan ku daray. tamaandhadiina waan ku darayaa. maanta chickenka saa idiin sheegay hurisaan ka dhigaynaa. maanta chickenka hurisaan ka dhigaynaa. bariiskii waa kanaa. waxaan kusoo daray 3 kalaar sacdaanka, jaalaha iyo casaanka iyo akhtarka. kana waa kanaa intuu iskaga guursanayaa. waxaan ku daray hadda midkaan bahalka la yidhaahdo kaaroote. waa kaasa waatana maasha Allah tabarakallah. in yar baa u hadhay. daawasho wanaagsan kana faa'iideysta. idina fiici doontaa insha Allah billahi kariim. halkan ayaan ku diyaarsanaynaa saxnigan bariiskii. ilaahay yiraahdo maasha Allah. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontiin kana heli doontiin bariiskan haddaa sidan u samaysatid. wuu ku anfacayaa. waa bariis firfira oo aada u macaan. qof kasta oo u diyaarisidna wuu u bogi doonaa, wuu soo jiidan doonaa. waa arki doontaa sidan ku samayso. aniga way anfacay horta. idinkuna ka faa'iideysta xaajiga saa ugu diyaariya. wixii indhaha deeqa maxay tiraa Soomaalidu ayaa uurkana deeqa. wayna ka sidaa fudud baa ku diyaarsanaysaa. lindanaantaada dhab maasha Allah tabarakallah. waa kana qadadeeni sidan ayaan kusoo diyaariyay quruxda badan leh.
waxay rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontiin. Asxaabtii hore la joogtay waa ku faraxsanay la joogitaankiina. Asxaabtaygu cusub qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawaada. Muusku waa lama huraan, lagama maarmo haddaynu Soomaali nahay markaynu bariiska cunayno ama qadadaba. waa kaas hadda maanta waxaan idinla wadaagaya bariiska quruxda badan leh sidaa fududka kasoo tuuro. haddaa ka cajismaan ay ka yarxiisi dhacdo markasta inaad chicken-ka duubtid ama aad shiishid, sidan baa ugu fudud macaana ood ku samaysan kartaa. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontiin. intaan muuqaal xiga idin kusoo noqon doono waa hodan oo idin leh xaafidillah fi amaanillah.